والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وريانه ودي السلام هرت bulshada igu xidhanay ayaamaha way idinka jiibsada waxay idinma soo duubay waxaan idin idhi war xalay life baan soo gala anigoo rabo wargaram hargeysa hoonkaybil ka socda in aan idin daawisiiyo waxa ka dhex socda oo niman ku hadlayaan ayaa in maadeerayaa lifekii layga xidha dabadeedna life la-aan bay xalay igu dhacay laakiin maanta waa la ii furay waan yar soo khaawisayoo waa furan yahay in maadeerayaalow horta soomaalida haddaynu nahay waynu isla daalay anigu always dhexdhexaad baan ahay dumarkana uma dagaalamo oo dumarka haddii laga khaldan yahay yes raggu hadduu khaldan yahay yes laakiin dhexdhexaad baan ahay doodaa xalay dhalinyara doodaysay hoonkaybil bay ka socotay shalay iyo moy goray soo geliyeen talo anigu kolley shalay baan arkay inan baa wuxuu ku doodayaa gabadhaydu haddaan lacag 50 kuna ka bixiyo oo ay dhimato caawa maxaa xal ah waa doodii abid intaan dood family iyo de ka hadlaysa bulshada arkayay waa inankii ugu caqliga xumaa intaan daawaday wallaahi waan yaaba oo gabadhaadu hadday dhibato inan baa markaa u jawaabto wuxuu hadday dhibato waxay tiri oo maxaa dhimashada qofkii dhammayda aad jeclayd ee aad naftaada iyo maalkaagaba u hurtaaba dhintee maxay sheegaysaa lacagtu maxay tahay dad baa bili aadanka ilaahay abuuray qiimeeya maalka oo aan qiimeyn shaqsiga iyo lifeka dadkaas weliba ninkani nin decades ka dhigayo oo aanu malayn dee kol wax loo keenay meesha garan maayo waa ninku ugu dooda xumaa buu ahaaye inan baa su'aal weydiiyey wuxuu yidhi aqoonta aad ku kasbanayso hablaha ajaanibka maxaad ugu kasban weyday hablaha soomaaliyeed marabaayad miyaanad samaysan karin gabadh wanaagsan haddaba mid baan idiin sheegayaa horta ragga soomaaliyeedow haddii aan gabadh xun ahayn horta inan iyo inanba gurigii uu ku soo koray wixii uu kala yimaado ayuu faamiligiisa la yimaadaa ma fahmaysaan gabadhu markay indha xidhan tahay inkastoo dablaan indha xidhnayno dee taleefon loo dhiibay inantu marka ay kow aad adigu bilcanto wixii aad ku barbaarisay ee ku dhaqdo weeye run baan kuu sheegayaa haddaad wanaag ku dhaqdo iyo haddaad xumaan ku dhaqdo labadaba adigaa u door leh labada qofna anigu waxaan lahaa labada qof ee isa soo calmaday had iyo jeer hadday iyagu isa soo doortaan family baa isku dira ama saaxiib baa isku dira laakiin laba qof badanaaba toos isuma abbaaraan way yar yihiin labada qof ee toos isu abbaaraan laakiin ama gabadha saaxiibadaheed ha ahaato ama isaga saaxiibkii ha ahaato ama iyada reerkooda ha ahaato mid baa problem ka yimaadaa nimanka soomaaliyeed iyo dumarka soomaalida waynu wada khaldannahay wax saxayhi ma jiro gabadhay sax ma tihid beenyaynaan ragga u sheegin wiilowadna sax ma tihid laakiin dooda markaad doodaysaan ee meelaha tiifiyadu ay doodayaan waa inay dad independena keenaan xitaa gabadha weyne meesha fadhiday gabadha weyne iyadu hooyay ahayd say u hadlaysay kama helin ragga unbay ataagaysay no waayo adigu waxaa tahay garsoore waxaa tahay hooyo waxaana dhallinyaray ahaayeen ama aabbayaha ama hooyooyin way yaryaraayeen waa inaad adigu garsoore ka noqotaa waa inaad tada ragow ishagaajiya bointiga iyo bointigaasaa ku xuntiin iska hagaajiya dumarow idina bointiga iyo bointigaasaa ku xuntiin iska hagaajiya always waxay ka dhiganayaan sharci dumarkuna waa naga tagtaan carruurta nalama korisaan waa naga baxsataan wax noocaas oo absolutely minor ah ragguna sidaasoo kale nama dhaqdaan nama hagaajisaan waxaan doonaya ma samaysid waxaad doonaysa maxay ahayd maxaad guriga ii keenta awel waxaynu isugu nimi horta marka horeba dumar iyo ragow maxay isugu timaadaan maahyada ninku kaale guriga iga shaqeyn now war waxaynu isugu nimaadnaa waa sariirtan hala iska qanciyo maxaynu isugu nimaadnaa guriga hooyada maad joogtid iyo baris baad ka cunaysay weel baad ka xalaysay adiguna maad guriga aabbahay hoodaa joogtid dee awalba geel iyo adhibaad raacsi buugaasa sedeesidow maxaa isu kin keenay nina kuma fakarayn carruur ka ugu badani wuxuu islahaa carruur aad dhashid haa reer yeelatid laakiin kumaad fakaraynin guri samayso aad weligaa lahaatid weligaa guri aad lahaatid samayso kumaad fakerin soo maa waxaad ku fakaraysa naag doono carruur kuu dhasha ayaama transit already transit baa wadateen gabdhuna waa transit ragguna waa transit markaa 5 sanaynu kala maqlaanaynaa waynu isla daasheen way isla basbeesheen wax idin garnaqana ma haysataan oo realityga si sax ah oo wanaagsan oo bulshadeena badbaadiya u garnaqaa dumarkuna ragay saaran yihiin ragguna dumarkay saaran yihiin laakiin anigu midna ma saarin laakiin waxaan arkaa bulshadeenu inay sii daciifayso oo sii baaba'ayso
oo sii dhimanayso laakiin waxaad leeyahay 5 sano ma kala maqnaanaa bal dumarow midda kale ragow kaba tagtay dumarkii maxaa dumarka ajaanibka haysta idinku saliday maxaad asma daa'uus iyo farxiye kaba farxiye cabsiye iyo hablaha cadaanka guursaday maxaa idin daba dhiga u caaysaan ama gaal ha guursato ama muslim ha guursatay iyada waxay guursatay iyada u taalaay it's not a your business warnaagtan wixii iyada la tagtay de maxaa u ooyeysaan maalin dhow xagee niman waaweyn oo caaya qol ku haysta bali soo shimishgrey ina cabsiye warina cabsi wanaaga dhakeega oo halkay marayso la garanaysa halkay degayso la garanaysa hablahani waa habla idinka horeeya jaahil baa tihiin idinba tagtee aynu kala tagno oo kala yaacno waxba yaynaan istarin aflagaadada ceebta aynu iska dayno dumarow idina faarax iska daaya ragow idina xalibo iska daayo warina kala 5 sano aynu kala maqnaanaynaa dabeedna waxaynu soo ogaanaynaa in hablihiinu sax yihiin iyo in nimadiinu sax yihiin bal wixii dhaqanka soo ogaada laakiin aynu ina kala kaxeeya anigu kulle faaraxa waa iska wataa fakinka ah faaraxa yara fakinka waa wataayo nin kale cadana kaga dhargi maayo oo anigu dee luqadda anigu Soomaali baan aqaanaa may fahanteen ninaan Soomaali kaga dhargayo markaan ku cadhoodo ku aasayo markaan faraxsanahay aan kaga dhargayo xabibidii macaankiyo qalbigiyo wax walba sheeka markaan u baahnay aan kaga dhargayo shabarigii kala arigii baxariiriyii waxari awrti geeli siyaasadii musraxweynii kaga aan kaga dhargayo anigoo arkaya adeer anigu ajaanib uma socdo hablahana waxay leeyahay naa Soomaalida wax idin ma dhaama jiraan ragana waxay leeyahay war Soomaalida wax idin dhaama jiraan wallahi xalimi faarax isu dhaama ma jiraan reality-ga idin sheegaya baro laakiin aynu soo kala yar nasano laakiin hablaha ama siyade hablaha ogol maxaa gaalkiisa kaa galay maadaa gursaday naag baa gursaday choicekeeda weya sidoo choice why waa ka fadhiista hablaha imanka alla idinka qaadiye bahala yahow kala mergiga dheerle wallahi cadayga qabatay ka waran adigu waa tagta wadiga la xaliba idin joogi ma xalib calaal weelay xalib kuusay xalib falkan xalib baaliye xalib qudol wadiga lehe yaa kugu haysta muslim baan guursanayna muslimka yaa ku waa muslim hadii la doono ninkan waa muslim balwadna ma laha laakiin taa tagaysa xashad bay cabtaa qulun bay isku shuftaa khamri bay cabtaa saqajaan bay cabtaa malaagta sharafta leh wax baratay educate-ka ah dalkeedii dadkeeda ka tagaysa waati nin xuna Soomaali ah oo aan dalba lahayn doonaysa dalba leedaha dalba ma lihide madaxo haysta maxay kugu raacay waa iska aamusa xishada afka kala baxabla ina kala kaxeeyo ina kala gura aynu kala maqnaano